الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن أو ناقصن داوديال كسر وهذا ورئيس جاره أو أنه لا يلام دونه جنرال يوسف محمد سياد إن عدي أو حلال كالدوان كسر وقفت الدولة فدرال كصوماليا وحين سيجاره جننك وجو دين دونه ورئيس ودن بيه وبحيي أجاسمي هو رئيس الدوان كصوماليا فهد ياسين وكأيده يملح بدن أو حلال صراحة هي إن يحرر ليهن على الشباب إسلام رهانتنا يكل ليهن كيسك الله أنا حريستي قبل اللي حقيقي إنه جريوتي إكرام تهليل فرح oo ka tirsaneedna wasugida Soomaaliya waxaanu jananka ku wareysanayna barnaamijka diirada farcade oo ku madcelinaya jananka sida nooga aqbashay janaal inda cad wareysigan iyo inaad arimahan tafaasiil dheeraad naga siiso iyo falanqeyntaada ugu horeen ku soo dhawow diirada farcade inta kadib bal si guud waa daawatay wareysigu bixiyay agaasimihi hore sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaji Daahir maxaa kaaga baxay Fahad wax badan oo ka hadlay oo meel badan taabanayay waxyaabaha uu ka hadlo tirada badnaana waxba uun fikrad baan ka qabi karaa marka adigu inaad meesha waxaad u baahan tahay inaad iga weydiiso diyaarano watahay waxaynu ku hormaraynaa wareysiga qaybta uu kaga hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax in lagu kala dhigi doono laba qaybood qaybta kiiska iyo qaybta eedaynta agaasimaha cusub ee sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad mid waxaan ku hormarayaa Ikraan Tahliil Faarax waxay ahayd sargaal ka tirsan nabad sugidda sida wada ogsoon yahay dawladdu waxay ku eedeysay inay al-shabaab dileen oo ay ku dileen gobolka Jubbada Dhexe meel kamid ah inkastoo saluug badan iyo khilaaf badan uu ka awurmay sida xogtaas nabad sugidda u baahisay dhinaca kale mucaaradka waxaa jira inay ku eedeeyeen dilka gabadhaasi iyo in la weysan yahaba saraakiil ka tirsan nabad sugidda uu hogaaminayo agaasimaha hadda aan falanqeynayna wareysigiisa ugu horreyn kiiskaas sida uu ku bilowday iyo sida hadda uu ku soo ilaaday sideed u aragtaa alxamdulillah horta kiisku ma ilaan waa socdaa weli middan aad leedahay mucaarad iyo muxaafid ah isku eedeeyana anu maba ogiba meesha mucaarad iyo muxaafid way wada hadleen dee gabadhu mucaarad iyo muxaafid midna ma dhexgeli karin gabadhu qof Soomaaliyeed oo muwaadinada oo dawladda u shaqeynaysay oo la waayay ayay ahayd cid kasta oo Soomaaliya oo dareen leh oo mas'uuliyad ah ama aan ahayn way taabanaysaa arrinteedu horta taabashadaasaa looga hadlay dad badan oo aan mas-uuliyiin ahayn dad mas-uuliyiina dad kale saasaa horta looga hadlay waxaad moodaa inaad Fahad taageeri markaad leedahay mucaafid iyo mucaarad ay dhamartay wareysigii Fahad inaad xoogaa aad gacan siinayso gabadhaasu waxay u shaqeynaysay nabad sugidda anu waan aqaynay waxay la shaqeynaysay oo agaasime xoghayaha u ahayd injineeriisu u ahayd tareenfakeeda la hadda ay kaydsan yahay hay'adda nabad sugidda inay ka tirsanayd waa la waayey sida fiidiyaha aan ka arkaynay baawar cado hay'adda nabad sugiddu leedaha soo qaaday oo ninka wada magaciisa la yaqaano godka jilcow uu keenay godka jilcow gabadhaas halkaasay ku naf weyday intaan xogtahay annaga adi ahaantaada anu intaan xogtahay anu horta Fahad iyo kulli waa kan ka uga aqoon badan hay'adda nabad sugidda qaranka waa tahay daawadayaasha waxaad u xaqiijinaysaa in Ikraan ay ku nafayso oo lagu dilay godka jilco la habeenkii la soo qaadaba waa inta aan qabo waay aan inta aragtideeda xaqiiqada waxa ah markaad wax adigu aad si baraatiga u haydo aad si baraatiga aad u haydo way meesha wax ka dhaceen xaqiiqada waxaanay adaa is horfadhin waa xaqiiqo laakiin wixii naloo sheego waa xog waay xogta aan hayo gabadhaas la habeenkiiba in la dilay oo maaragtay ay ku dhimantay godka jilcow in la soo aasay nimana maxaabiiso ay soo aaseen maxaabiistiina la dilay soo aastay anu xogtaan gabadha horta ka hayo saas waay xogtaan dana waxaa iska leh hay'adda nabad sugidda uu Fahad madaxda u yahay gabadhan ayaga ka tirsaneed ayagayna ku maqan tahay waraysiga Fahad marka
markaad wax iga weydiiso aan ka jawaabaa laakiin xogta gabadha ikraan saas waa tahay xogta hadda aad sheegta ayaan dhowr su'aal ka qabaa yaa ku xaqiijiyay in ikraan isla habeenkii lagu soo qaaday gaariga in lagu dilo godka jilco yaad ka soo xigataade horta xogta sirdoonku wax kale waa qofkii yaqaanaa yaqaana xogta sirdoonku oo la helaaho lama yidhaahdo meel hebelan ka soo xigtay iyo qof hebelan ka soo xigtay lama yidhaahdo sababtoo ah qofka xogtaas bixinaya arrimo sakuurad buu ugu baahan in la qariyo shaqadiisa ugu baahan in la qariyo yacni jiritaankiisa shaqada uu hayo iyo yacni howlaha dambe oo hadda ka hayo aa u baahan in la qariyo marka taas cidna lama wadaagayo waa ku gartay waxaan rabaa waxaad sheegtay in gaariga qofka soo qaaday magaciisa la yaqaano haddaad noo sheegi karta magaciisa waa dadkaa yaqaano hooyadeeda ma taqaana marar badanna waa la sheegay waaya halka lagu duugay meydkeeda haddaad noo sheegi karto tirada maxaabiista fulisay howlgalkaas haddaad noo sheegi karto oo dabcan soo aasay meydkeeda oo hadda aad sheegta adigu horta meesha lagu duuga ma aqaano maxaabiistiina hadda waaba la dila iyagana imise ahaayeen maxaabiista soo aastay tiradooda ma hayo laakiin maxaabiista soo aastay iyagana in la dilayaan anigu xogta aan haya ay sheegi gabadhan isla habeennimadii la dilay anigu xogta aan haya intaasi sheegay mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa ciddii shaqada hayday godka jilcowna waxaa joogay yaasin farey oo madax ka ahaa haddana mas-uuliyaddana waxaa madax ka ahaa fahad yaad is leedahay amarka dilka gabadhaas uu ka soo baxay wallaahi waxaan is leeyahay labay mid tahay midaana u badaa aniga waxaan is leeyahay gabadha in la dilo lama rabin waxaa la rabay xog laga helo wax lagu tuhmiyey aa la rabay xog in laga helo xogtii in laga helo la rabay ayayna gabadh u dhimatay dadka marka dadka wax ka soo saaraana waa la tababaraa meel waxaa jirta qofka haddaad ka taabato wax walba waa uu sheega weligiina aan yani saddex inta dambana aan lahayn asna wuxuu dhibayn markaas iyo meel haddii laga taabta naftu ka dhace marka waa la tababaraa dadka wax ka soo saara halkaas dadka ku dhufanina saas ha yeelinina halka waa la tababaraa gabadhaasna tababareena loo dhiibay xog in laga soo saarana la rabay sidii la rabay xogtii in laga soo saarayna u dhimatay saasaan aaminsanaanay waa tahay eedinta aad sheegaysa iyo xogta aad heshay waa xog dee dabcan saamixi karta in lasoo helo dadkii ka dambeeyey dilka gabadhaasi markaad eegtay khibradaad u leedahay arrimaha ciidanka xogtaad aad heshay ilaa intee lagu kalsoonaan kara ay kula tahay horta arrimaha sirdoonka ama amniga waana la rumaystaa waana lagu shaqeeyaa markii la rumaysto oo lagu shaqeeyo beenna waa noqon karaa runna waa noqon karaa laakiin anugu inta aan hadda xogtaayo waxaan isleeyahay boqol waa lagu kalsoonaa karaa gabadhuna godka jilcooda ku dhimatay godka jilcoona dadaa joogay haddana waxaan isleeyahay already taliyaha nabad sugidda ninka ah qaranka inuu xogtaasoo dhammaystiran ayaan aaminsana anugu waa maxay aad is leedahay sababta ikraan oo ka tirsaneed hay-adda loo beegsan karo oo sababa in dilkaas loo geysto haddaad aad sheegayso adigu wallaahi aniga waxyaaba badan igu soo dhacaya markaan fiiriyo sidii madaxweynuhu arrintaa u farageliyey waxaa igu soo dhacaya waxaa igu soo dhacaya marka aan fiiriyo oo madaxweynuhu isugu qaawiye qaranka gabadhii in la helo isugu qaawin lahaa markuu farmaajo madaxweynihii hore isugu qaawiyey gabadhaas inaan la helin warkeedan aan la soo qaadin markaan fiiriyo waxbaa igu soo dhaca oo aan isle maxaa ku kalifi kara madaxweynaha marka aan dhinaca kala fiiriyana dee ma garan karo ciddii taargedgareeda taqaano la shaqaynaysay waxa ay gabadha ku taargedgareeyeen waa tahay fahad yaasiin xaaji daahir waxa uu ahaa waktigaa la waayay ikraan
agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa xilliga gabadha la waayey waraysi dhowaan uu bixiyey wuxuu ku sheegay in dilka gabadhaasi ay iska kaashadeen waa siduu isagu sheegay al-shabaab iyo madax ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wasiir ku-xigeenka alcadaala iyo agaasimaha cusub ee mardhow la wareega talada nisa mahad maxamed salaad eedeynta fahad yaasiin sideed u aragtaa mahadna dee al-shabaab ahaan ayuu sheegay inuu howlgalka u fuliyey wallaahi horta adeerow fahad hadalka uu sheegay anu waxaan aaminsanahay inuu asagu isku markhaati furaayo lamana qaadan karo sabab badan looma qaadan karo horta waxaad fahad nimanka uu sheegaayo waragana waa ra-iisul wasaaraha ka ag dhowaa ra-iisul wasaarahaadoo ra-iisul wasaarahoo ahay yani faynuuska keli ah ee uu ifaayey raadinta cadaalad inay igraan hesho haragga kalena waa kaagu dhawaaye maadna yani dhibaanadii mucaaradka ahaa oo aad yani uga soo horjeeday waxa ay nimankii nabar iyo manaxdin oo fahad iyo farmaajo ay hogaaminayeen ay dalka ka wadeen dictatoriyadda ragga ugu cadcadaayo ah marka looma afartan ninna waa isku hal qabiil wa hataa in oo gabar yaroo masaakiina afar nin oo madaxoo hal jufa ah soomaalidu qabiil way u dhibtaa laakiin markii qabiilka dakana ka qabo ayay dakana qabiil saas u sameeyaan laakiin arrimo siyaasadeed ya saas looma samey karo waa qodob saraakiisha kalena labada nin oo kalena waa saraakiishii ra-iisul wasaaraha ka dhowaa waay oo la shaqeynay ninka kalena hadde waaba nin aan al-shabaab ah waasna u qabiilka faamilkaas waay horta egraan tahalin marka cid kasta wax garanaysa ayaa waxay garan kartaa dad mas-uuliin oo saasoo inaysan ugu heshii karin in lagu xumeeyo hay-ad ama dal in lagu xumeeyo inaysan u heshii karin wax keliya oo fahad ku noqnoqday ya hay-adda ay rabeen inay sharafta ka dilaan waxay rabeen inay maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda isku diraan waxay rabeen yani waa unlogic wa hadalkaas waa unlogic waxa jira ma waa qodob qodobka kale fahad waa eedeysane fahad waa eedeysane qofku markuu eedeysana yahay fahad wuxuu lahaa aniga diinta islaamka lagu soo barbaariyey waa ka xumahay inuu yidhaha diinta islaamka lagu soo barbaariyey qofku hadduu yahay eedeysane sharciga islaamka u qabaa inuu garbaxo wax dacwaa oo fura karaana aysan jirin wax dacwaana inuusan fura karin lagana aqbalin sharciga madaniyaano saasuu qabaa fahad waa eedeysane gabadha hooyadii aabahood fahday u haystaan iyo maamulka madaxda ka ahaa marka sharciga islaamka iyo kan yani dimuqraadiyadda markii laga hadlana yani fahad arrintaas inuu dad kala saaro amau ka hadlo waa xaaraan waa in uu asagu isberi yeelo waa ku dhamayna waa inuu asagu isberi yeelo waxaa soo haray shabaab ciddi shabaab waa la fahmi karaa erayada uu fahad ku hadlayay qofkii shabaab yaqaana yaqaana afkii shabaabka fahad oo ku hadlay oo hanjabaad leh oo hanjabaya cid walba oo yani ciidankii u hanjabayay hay-adda nabadgelyada qaranka u hanjabayay ra-iisul wasaarihii dalka yani u hanjabayay ninka hadda hay-adda haysta awood marka fahad oo ku hanjabo oo dadka u hanjabo oo maanta haystaa ma jirto
marka gacantii la shaqeey jirta asaga oo ikraan ku maqan tahay oo la og yahay oo isku minshay hay-addii maaragtay nabad sugidda qaranka iyo shabaab gacantii isku mishay oo asaga iyo cabdiraxmaan dheere ah ayuu weli ku hanjabaya in uu mas-uuliyadda markuu haayey uu maanta ka hadli waayey inuu ka hadlana waa dembi ay isagay dembiya markhaati ku tahay waxaan maqla jawaabaha su-aasha uu weydiiyey markaad aad ahayd adugu maxaad u sheegi weyday madaxda wuxuu yidhi haddaan sheego doorashaa lagu jiray in dhibaato timaadaan ka baqay doorashada qaranku ay qalqal u gashay ya oo ku sigatay yani dhibaatada ikraan tahliil maahana kuwa ka badan oo labadii sano kore ay kororsadeen ka weynaa wax badanaa ka weynaa kuwaas inay ka hortagaan hadday rabaan inaan dalku qalqal gelin kuwaas inay ka hortagaan waxaa eedeynta jeediyey waa sargaalkii ugu sareysay doonka Soomaaliya ama agaasimihii ugu sareeyay isagoona carbaabay dadka ku lugta leh arrintaas way loo beensanayaa ereyga ama hadallada ka soo baxay Fahad oo sirdoonka Soomaaliya haystay maadaama hadda aad sheegtay in xogo sirdoon aad kiiska ikraan ku faahfaahinayso waxaa loo diidayaa adiga ya maanta halkaanaad fadhidaa anaad i wareysane awood waxaad u leedahay aad igu wareysato laakiin saacad kadib haddaan kala tagno awood igu wareysata maleed haddii aad marka tiraahdo ya markii aan wareysanayey maaragtay sax ma aanan ahayn haddii aad tiraahdo sax ma ah awoodda Fahad awoodu markuu awoodda lahaa ya oo hay-adda sirdoonka qaranka madaxda ka ahaa milkilaha qaranka Soomaaliyeedna uu ahaa ayay ahayd inuu tilaabo sharciya qaado hadalkiisa ma la qabanayo hadda sharciyan ma la qabanayo ma la qabanayo waana kugu elaaye sharciga islaamka iyo midka mudaniga midna Fahad hadalkiisa ma qabanayo Fahad waa eedaysane saa dacwo loo qaba waa inuu garba wax uu sheegana waa baadil ma la qabanayo waya waxa kamid ah hadalkiisa oo de mid aan u dul istaagi doono dabcan intaan ognahay waqtigaas waxaa jiray xaalad doorasho wadanka gaar ahaan waxa si gaar isku hayay xafiisyada wadanka ugu sareeyay midka ra'iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha oo Fahad waqtigaas si gaar loogu tirinay inuu saaxiib u leeyahay madaxweynaha wadanka miyaanan loo fasirin karin ama aysan ahayn in gabadha loo dilay iyadoo hay-adda sida uu sheegay waqtigaas tashwiish lagu furayo ama ugu yaraan dagaal siyaasadeed laga abuurayo adeer horta waxaan fahantaa waxaa wax tashwiish fura qofka yani asagu raba inuu wax la cararo wuxuu samaystaa waxaas oo la cararaa oo difaac u samaystaa si ula cararo nimanka la sheegay waxba la carari miin wixii lala carari layahan hala dhigo ma fahante arrintaas gabadhoo siyaasi maba ahayn waxay ahayd qof shaksiya oo la dilay oo mudan in xaqiisa la siiyo ayana ilahay waa ka lumiyey ilaahay qofku lumina adana ma toosi karto waa inaad in inta la fariistaan waalidkii gabadhaan dhalay ay dhaan war gabadhii waa dhimatay sababahaanayna ku dhimatay ee ay la xaalaan laakiin yani ilaahay waa looha qofku alla luminayo adana ma toosi karto marka adeernimo wax la cararaa iyo niman labar waxaad idin dhiga oo ummadda waxeeda u dhiga kee wax dilaa adaan su-aashta ku weydiinaa kee wax dilaa kee dhib geysanaa kee difaac samaysana waxaa samaysanaya Fahad iyo Farmaajo wax la cararaay ma fahanta wixii la cararaayay wax kamid ah gabadhaan usoo dhex gashay ama Farmaajo ayay gabadhaan xogaysa Farmaajo xogaasa ka yida gabadhaan oo u dhimatay ama xog kale ka haysay nimankan hay-adda madaxda ka ah
shaki ay shakiyeen horta taas qodob gabadha mid u dhimatay nimanka gacantooda ku dhimatay waa tahay waa la isku raacay gabadha inay dhimatay oo gacanta nabasuuda ku dhimatay waaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dabcan waa nin 5 sano ee lasoo dhaafay si weyn maamulkii madaxweyne Farmaajo ugu dhex muuqday waxyaabo badan oo dowladda ka mid ah si gaar isaga loogu saarinayo inuu talo iyo go'aamo ku leeyahay inagu aadi doona qaybta eedeynta u jeediyay Mahad Salaad kiiska gabadhan iyo Fahad Yaasiin eedeynta u jeediyay xagee ayay ku wada dhamaan karaan kula tahay horta waxay ku wada dhamaan karaan sharciga maxkamad sharciya oo cadaalad ah oo aysan ahayn xilaalihii guud arrintaa galay saaxiibkay buulle oon asna ogahay anna asna ogyahay anna aan ogahay meeshuu arrintaa uga haray inuu lafihiisa u baqay oo la yidhi lafahaaga u baq laakiin aan aaminsanahay maanta inuu sheegi doono marka waa sheegi karaa hadduusan shabaab ka baqayn cid aan ahayn oo cadaalad oo maxkamada in arrintaas loo dhiibo keliya u baahanta waayo waxaa soo hadal qaaday xerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka side Axmed Buulle dabcan saan ognahay wuxuu ka mid ahaa raggii inta ka hadlay TV-ga qaranka ee cadeeyay in Fahad Yaasiin Cabdullaahi Kulane iyo Yaasiin Faray inaanay wax luqa ku lahayn iyo sidoo kale saraakiil kale kiiska gabadhan maxaad noo sheegi kartaa waxa ku qasbay xerlaaliyo inuu sheegay iyadoo Fahad uu sheegay inaanu ka warqabin goorta la soo eedeeyay iyo goorta xerlaalintu sheegtay inaanu dambi lahaynba horta waxaa qalada xerlaaliye maxkamad ma dad ma beri yeelo cid kastoo sharciga taqaanaa taqaan xerlaaliye dembiguu soo oogaa dembigaas uu soo oogo ayuu daba socdaa waxaa beeniyo dembigiisa yiraa dembigaagu ma jiro waa garyaqaanka xukunka loo geeyo oo yani ninka laakiin xerlaalintu waxay leedahay inay ka laabato sug male dacwadu fiiri qofka haddii inta lasoo dacweeyo oo maxkamad meel la hor keeno sharciga islaamka qofkii soo dacweeyey dacwadan wax ka noqda ma dhihi karo sharciga islaamka haddii ay ka soo aroorey cinqaabo dacwadaas haddii cinqaabo ka soo aroorey ya ma dhihi karo qofku ma cafi karo qofka banaanka ku cafi karaa ninka ladaa buule iyo xeer ilaalintu waa dacwo oogis waay dacwo oogis waay dacwada wuxuu la noqon karaa wuxuu dhihi karaa waa la noqday lama noqon karo laakiin yani systemkan sharci maahane lagu dhaqmo wuxuu dhihi karaa markii uu soo fariisto garsooruhu oo dacwada la qaado ayuu wuxuu dhihi karaa dacwadooda waa la noqday inuu yeelay inuu didana garsooraha xaq u leh garsooraha xaq u leh laakiin si jiraad inta qabto waa dembi waa dembi cadaaladaan jirine buulle maxkamad in la saaro saaxiibka wiilkeyga waa aniga buulle xalaaliyaha guuda gobolka shabeellada hoose u ahaa aniga anuu i ahaa waa isna ugu yahay ummadda dhamana waa taqaanaa marka waa in maxkamadda sare leedahay yani ilaaliyuhu garsooru isu bedelay ilaaliya maayo inuu yiraa idaa beriyaan xaq uma lahayn shaqadiisana ma ahayn maxaa ku qasbay kula tamaa waa la hendaday waa loo dhaartay gabadhi aad ka daba tegaale yaa handaday waxaa handadaas la weydiina isagaba nool waa tahay dabcan mawduucaynabu wuxuu ku saabiyay maanta inaan falanqeyno wareysiga Fahad Yaasiin shakhsiyan jenaraal indhacda adiga maxaad ka taqaanaa Fahad Yaasiin aqoon intee leeg ayaad u leedahay Fahad horta anuu waxaan barta soo wariye ah اتحادكينا كترسن أيام برتي برجع محكمة أنا سفانا مبرت واجي أنا إذا ما إثيوبيا اللي دليلين أنا وراركو لقى قاعد يجري ودوكو موي ما يجري
kadibna wuxuu ku milmoo la haray al-shabaab ninka keliya oo godano waraysta oo haajir halkaas anuu ku og aljasiirana u shaqeeyo shabaabna uu yahay godane wariyaha qaaskaa godane uu yahay halkaas anuu ku og ayaan waxaan arkay doorashadii xasan sheekh asagoo siyaasadda ku dhex jira ayaan arkay magaciisa asa xataa ma arag magaciisa fahad waan ayaan meelaha ka maqlay halkaas ay ugu dambeyday haddana fahad ayaan maqla farmaajo waxaan noqda taliyaha madaxweynaha habeenada kamid ah inaan xafiiska madaxweynaha kasoo baxay soo agaasimaha madaxtooyada ah ayaana sidii nin isla taaganaan ag maray telefoon ku hadla markaan soo noqdaa ninka ma aqaana hadda wuxuu ugu yiri ninka mataqaan miya fahad waa aqaana waan iska ag maray waxay igu egtay cabdiraxmaan cabdishakuur habeenkii la weeraray maalintii ka dambeeyay abaara 5 saac ayuu isoo wacay wuxuu ugu yiri madaxweynaha iri soo gal taliyan waa soo galay waayahan anu diyaarad ingeera ma haystee laakiin waa soo baxa fahda ay la soo hadlay subaxdii dambe 5 saac wuxuu madaxweynuhu lacag u diray xagaan kugu soo diraa lacag uma baahnin fahdi aniga halkaas barashadeenu ilaa intaasi laagta maqal iyo arag laakiin mar soo fariisan waa soo fariisan war si uga qaado wiilkayga waayo ana idaacadda halkan ka furayd tasiiro أنا إلى جري وتغيير جرو ما عرفت أيضا يو أنا بشر أنا كإلى جري لكن الجزيرة سويك لي ما هين لكن السجع تيم ليدر باش أقصى بحيبة والجزيرة مركي وريه ما هين الجزيرة توصى وريه ورك أي كقعتان هي وقرقرة وهاي مركز يعني أو محكمة دي يو أو نقضي ويعني وريه فعالة الجزيرة قاعدة مركز waxaan ka hadlayaa 5 sano ee maya isma noor fariis maya isma noor fariis watahay ma ana rabnaa soo fariisano marnaba inaan soo fariisano ma ana rabin nin oo isu arka inuu dalka leeyahay ya inaan hor fariisto anoo kamida dadka oo leeyahay milkiyada marna ma ana rabin ninkii uma sii maayo way haddaan dib ugu laabano waraysigii Fahad Yaasiin uu bixiyay waxaa jirta qayb kamid ah oo uu si gaar uga hadlay shakhsiyadda iyo waxa uu yahay agaasimaha cusub ee isaga xilkiisa la wareegay Maxamed Salaad dabcan adiguna aqoon dheer u leedahay Fahad intaynan u gudbin arinta eedeynta uu jeediyay ugu horeyn bal mahad maxaad ka taqaanaa agaasimaha cusub mahad waxaan ka aqaanaa anigu horta aan isbaranay doorashadii xasan sheekh iyo sheekh shariif markii xildhibaanada la xulayay ana soo masar ka yimid aan horta anoo xildhibaan raba iyo soo xildhibaan raba halkaas horta isku baranay barashadii noogu horeysay waa xagee marka maxamar mise xamar city plaza hotelka la dhihi jiray oo gaadiidka boolis ku dhegan halkaasaan isku barano ugaas ku deganaa iyo qoraya xildhibaannimada halkaasaan isku barnaanima way kadib aqoonti kale isku sii lahadeen kadib mahad waa ninaan cariifanahay aadna aan u aqaan يعني إن بدنا أنا قان مركب واحد يودي هذا يكون يعني لكن ما ظن ما أنا طبعا فهد ياسين وحو ورئيسي سقيب كم كل شيء إن ما هالصلاة وكل شيء دل على شباب ما يحرق ولا اللي هاي مرنا ويسكت ده إنه كشق دليتان كما خارجين رئيس الوزراء وضن كسامر وسمع عيسى الشيخين إذا أنت نوع عاصي لو شيء أجا اسمه عصبة سومالية سيدا كله مقطع أرتا إن شاء الله تعالى وواحد مغص لوه أنا أرتا واحد وإلي كلي لكن أنت أنك أغانو لما ما تسمي غني وين نسمع لك اسكو مالك ما صبر بعد dadku waa cadee labada mahad waa mahad karata iyo mahad salaad laba mahad
isku meel kuma soo barbaarin, isku meel wax kuma baran, isku meel ma degin, ismana yaqaanin. taasana ana caddaynaya, dadka yaqaanoo dhanna waa caddaynaya. waa qodob. qodobka kale wuxuu qooje iyo wasaaraha asagaa ka dambeeyey ninka qarxiyey. ninka qooje qarxiyey waa nin habargidiro cayra, yani waxa faad ka shaqeynaya nin sheega xumaantooda qabiil dhan uu isku baadigooba. ninka qooje isku qarxiyey aniga iyo qooje staff noo ahaa jira. allah u naxariisto qooje dagaali ciidan uu madax u yahay inuu kor kasii xukumo uu kamid ahaa. ninka isqarxiyey waa qarxi ka dhacay gaalkacyo. gaalkacyo ka dhacay mahadna ma yaqaan hataa magaciisa inuu cayra hataa inuu soo qaban malaha ma ogi aniga sikana inay ku gaarto. laakiin waxaan hubaa inaan mahad aqoon aan hubaa ninka isqarxiyey. ninkaas qarxiyey annaga markii noogu dambeeyey nin jaadka tuba ah. qoojana annagana waa naga tegey, shabaab lama raacin. qoojana waa yimi, anna waa iqiin. ma ciidanka hore uga mid ahaa? maxkamadihii uu kamid ahaa. ciidankeen raggeena maxkamadaha uu kamid ahaa. ciidan qaas u xukumay oo qooja tale allah naxariisto qooja dagaari uu kamid ahaa. staff qaasuna aniga iyo ahaa jira. qoojuu kadib ku wareegi mar uu shaab noqdo xataa anaga ma aanan garanay. qooja marka ninkaas aqooniisa ugu tegay, aqooniisa marka soo daayo waa la ogyahay. والله يبلغ هذا قولي يا ديجر والقولي كذا هذا وقولي وانا كستاف واجري وصل شيء يجري وكل ناس جات قطع كل هذا وقولي ساسا ورد الناس وها ما اقول يعني ما انا ارق ما قيس انا ما يغان لكن ما صار عيروها الناس فيني ممكن كان هالقبيل وتارجت كرينا كل هالقبيل طولوني سفيري وحوا اسمع ما انت لا قال لي هذا فهد انت ننجس شغلكم عليه ما بكله مرك عرضت ايه صارته waxa laga shaqeeyaa wax dhadhan loo yeelay marka ka shaqeynaa ninka qarxiyey dhuusan reeb ka soo baxay ten waxaa la tuumaan anagu tuumaynaa inay naban habargidir ahaayeen aan tuumaynaa habargidirnimadaas ayuu haddana mahad ugu sii saaraa. marka ninkaas mahadna al-shabaab weliga shaqa kuma yeelan, mana lagu tuumi karo, mana lagu tuumin shaqana weligina in lama yeelo intaanu ka aqaano. laakiin ninka shabaabka ah waa Fahad oo aan aqaano. eedeynta uu jeediyey Fahad waa eedeyn culus. maxaa ku sababi karay kula tahay in uu dee eedeyntaas la eg uu taliyo hadda hoggaan maamulo oo ciidan ay hoos tagaan oo sirdoonka Soomaaliya xukuma inuu eedeyn caynkaas oo kale u jeediyo? Soomaalidu way ku maamaadaa neef gowrac anugeeda kama waabto. Fahad waa neef markii la gowraco waa raftaa. marka geedka waxaana geeda iyo waxaana bira iyo waxaana qofa iyo midna ma garanayo birkoo gowracay naftii arrafine. Fahad waa neef gowracan waay marka waa rafana rafashada oo rafana waayo waxaanu ma ahan يعني intelligence ina wax kama yaqaan, systemkiisana ma yaqaan. hadalkiisuna markaad aad fiirsanayseen laba shay uu ahaa nin fiigsan oo faraxsaneen uu ahaa, nin dad hindadaana uu ahaa oo de uma sheegaba dadku hindadaay. nin dad hindadaana uu ahaa. dabcigaas al-shabaabka iskale wata Fahad wuxuu yidhi ciidanka nabad sugidda ninkii la wadaago la shaqeeya agaasimaha cusub wuxuu bixiyey sir qaran. wuxuu u dhaaranayaa oo u gudbinayaa dhaar ciddii ogeyd ikraan meesha ay ku baxday
oo u sheegto la wadaagta agaasimaha cusub ma noolaanaysa ha ogaatou leey fariintaasuu diray marka fiiri saddex shaaya meeshas ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya in fahad weli oo hay-adda nabadsuguda ku dhex jiro oo ku dhex jiro oo awood ku leeyahay waxaa ka soo baxaya qodobka labaad waxaa ka soo baxaya dadka uu dhaarana inay yaqaaniin in fahad dadka dilo oo awood u leeyahay inuu khaareejiyo waa qodobka labaad waa qodobka saddexaad wuxuu kala shaki gelinayaa hay-addii iyo taliyahoodii ayuu kala shaki gelinayaa marka wuxuu isticmaalayaa falsad al-shabaab warkaan aan idin sheego warkaan qaabka loogu waryuhu kuma talagelin inuu faad warsado laakiin sida ay isticmaalaan shabaabku ama beriga maxaakiinta aan isticmaali jirna markaan dagaalameynay marka oo war fiican dowladda oo heerlineka saaran yahay warkaas war baabiyaan heerlineka soo saari jiro waraysiga faad waxaa loogu talagalay oo kale in lagu carqaladeeyo calamasaarka madaxweynaha 70 kun oo daawanaysa faad calamasaarka ma aysa daawanayn waxaa loogu talagalay in lagu baawarka looga qaado maaragtay calamasaarka madaxweynaha waa shaqo ay ka wada shaqeeyeen farmaajo waa soo gabagabeyn halkaas baxa farmaajo iyo fahad iyo gurubkooda shaqa laga shaqeeyo la dhisay waxaa lagu soo aadiyey kii kale haddana janis oo yani marka yani fahad waa in sharciga la hor keeno markii sharciga la hor keeno halkaas gabagabeynaa as ha caddeeyo ciddii gabadhaan dishii ya asagoo iska beri yeelo markuu iska beri yeelo markii inta ciddii dadkan dacweydo ee markhaati u qabsato ayuu markhaati geli karaa ka hor wax fahad arrintan asagaa ku eedaysa waa maadsanta waa tahay waxaan ku siracsinaya su-aashii tan ka horeysay aan ku weydiiyey si kiiskan laga guun gaaro maxaad hal iyo laba tale aada u jeedinaysaa agaasimaha cusub ee kiiskan gacantada ku haya hay-addiisina ay ka dhacday hadda u maamulo ilaahay baa mahad iskale agaasimaha waxay ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii gabadhaasu ka dhalatay iyo qarankuba ka sugayaan inuu arrintaas soo caddeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan subcaddiisaana ku xiranba subcaddiisa iyo siduu hay-adda u hogaaminayo aana ku xiranba kiiskan soo kiiskan uga miro dhaliyo ay ku xiranta marka waxaan kula talinaa asagoo degan oo aan hadalka faad qalqalgelin sidaan ku aqaano nin baqa maano qalqalgelinaya ma aha sidaan ku aqaano mahadsalaad nin oo iska adag oo raga waay laakiin haddana nin oo dhash halkan seexa waayo waxaan kula dardaarmaa asagoon waxba qalqalgelin degdegin biyobeeska ka ilaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan inuu kiiskan meel u soo saaro madaxweynaha jamhuuriyadda iyo cid kasta iyo arrintaas gacan ka sii kartana inay gacan buuxda siiyaan agaasimaha waa tahay su-aashii ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo gabagabeynayna ee diiradda farcade intaa dowladda cusubaa dhalatay oo dabcan dowladdii hore talada waa ay wareejisay waxaana dowladda hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la filaya in xukuumad iyo ra-iisul wasaare cusub iyo dad cusub ay soo kordhaan ama dad kale ay dib usoo laabtaan maxaa tala aad siinaysaa dowladda cusub ugu dambeyntii horta madaxweyne xasan sheekh dalkan weligii kama baxin weligiis dalkan inuu inta meel uun gaaro kasoo noqdo marka madaxweynaha iyo markii uu de waxbarashada joogay waa laga yaabaa laakiin xasan sheekh dalkan siduu ugu dhashay waxaan isleeyahay 3 casho kama maqnaa intaan ka aqaano madaxweyne
dalkani soomaaliyana waa soo maray weliba waktiga adag ah hadda marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu talo uma baahna waa waaye arag bini aadamku waa iska bini aadan oo waa daciif oo ma dhamma laakiin anigu maanta tale aan u jeediyo oo u baahan yahay uma jeedo waa tahay guud ahaan aad baan ku mahad celinaya jeneraale guud ahaan waxaan daawadayaal intaas kusoo afmeerayaa barnaamijka diiradda farcadda oo aan si gaara ugu eegnay islamar ahaantaan aan u falanqeynay wareysigii gaarka ah ee uu bixiyey Fahad Yaasiin oo uu ku duray madax badan oo wax kaga sheegay sida agaasimaha cusub ee NISA ra'iisul wasaaraha dalka iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan al-shabaab oo uu uga hadlay wareysiga uu bixiyey aad baan ugu mahad celinayna janka uu soo bandhigay xogo ku saabsan dilka gabadhaas iyo halka sida gaarka looga fuliyey tan intaan barnaamij caynkani oo kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo